shirkadaha caalamka ku yaal tiro badana ee wax soo saarkooda kala fiicna. Caanimadu waxay imaataa markii aad bixisid juhdi iyo dadaal dheeraad kadib. Dadka markaad indhahooda in badan ku soo laablaabatid, taas oo kaa dhigayso marka dambe inaad qabsatid maskaxdooda oo aad noqoto mid macruuf oo la yaqaano. Nestle, shirkad caan ka ah daafaha caalamka, taas oo laga isticmaalo wax soo saarkeeda guri walba, waxaa kor u sii kacayay sanadihii la soo dhaafay dhaqaalaheeda iyo baaxadda hantideeda iyo wax soo saarka walshadeed ay ku suman tahay shirkadani. Dad baa u maleeyo magaca ku qoran shukulaatada Nestle inuu yahay magac ku kooban shukulaatada, balse hadalku saas ma aha. Waa shirkad weyn, magaca ay sidato shukulaatada. Waxyaabaha ay soo saarto shirkadani oo ay caan ku tahay waxaa ka mid ah chocolate-ka, kafeega, caanaha nido iyo buskudka. Haddii aad fiiriso bac walba macmacaan oo sajalaysan, magaceeda ayaa ku qoran shirkadani 90%. Waa shirkad ku xeel dheer soo saaridda waxyaabaha la xiriiro macmacaanka, waxayna aga soocan tahay shirkadaha kale ee boqolaalka xabee ku yaalo daafaha caalamka. Wax soo saarka shirkadani wuxuu gaarayaa ku dhowaad 7,000 oo wax soo saar. Muuqaalkeena daawadayaal, waxaan ku eegaynaa ama aan ku fiirinaynaa shirkad ka mid ah shirkadaha ugu caansan dhanka soo saaridda cuntooyinka fudfudud. Magaca shirkadani Nestle wuxuu ka yimid yagleelaha shirkaddan, waana magaca qoyskiisa Nestle Family. Waana magaca shirkadda haddii ay ahaato kafey, bunni, buskud iyo shukulaato iyo shay walba ay soo saarto shirkadda intaba. Hana ka reebin caanaha ay caanka ku tahay shirkadda ee Nido. Waxay leedahay shirkadani 447 xarun oo ku kala yaalo Yurub iyo Aasiyaba, waxayna ku yaalaan xarumaheeda ku dhowaad 189 waddan. Waxay leedahay 339,000 oo shaqaale. Dhaqaalaha guud ay shirkaddu leedahay oo ay ku taameyso waxaa waaye 91.43 bilyan oo dollar. Dakhliga sanadlaha ee shirkadda soo gala waa 10.46 bilyan oo dollar. Waxaan rajaynayaa inuu muuqaalkan ku qancin doono oo aad ka bogan doonto insha Allah. ugu horreyn, intii aad muuqaalka gelin, waxaan rajaynayaa inaad taawan doonto calaamadda gaduud ee subscribe-ta. Sidoo kale, laagtana taawo si ay muuqaaladeena dad kale u gaaraan oo aan u kasbano asxaab adiga kulmid ah oo sidaadoo kale u wanaagsan. Aan u gudagalno muuqaalkeena. Shay walba goormaa tayadiisa la ogaadaa iyo waxqabadkiisa waa goortii aad isticmaasho. Dadka meesha idinkaga muuqdo waxay ka soo jeedaan galbeedka Afrika, waana dad addoomo ah. Dalkooda ayay ka baxdaa waxyaabaha laga sameeyo shukulaatada. Dib haween ayay ku wadaan iyo shaqo si loogu qaado walshad looguna soo habeeyo shukulaato. Geedkan aad u jeedaan meesha idinkaga muuqdo waxaa laga sameeyaa shukulaatada. Aad aragtaan muuqaalkeeda iyo quruxdeeda, oo markaad aragtid aad macaansanaysid cunitaankeeda iyo midabkeeda qurxoon. Shay walba suuqa yaalo siduu caan ku noqdo way adag tahay. Waad aragtaa sheeyaasha caalamka yaalo dhammaantooda, hadday tahay kambani, dhammaan waxaa loo sameeyaa xayeysiis si loo caan bixiyo ama dadka looga gado. Kuwo qaar ayaa balaayiin ku bixiyo sanad walba si ay ku helaan xayeysiis oo looga gato wax soo saarkooda. Xayeysiiskaas iyo faalahaas waxaa loo sameynayaa sidii dadka maskaxdooda loogu qabsan lahaa oo loo soo jiidan lahaa. Kullamaa shayga aragtida dadka uu ku soo laalaabto, waxaa sii kordhayo tirada aqoonsi uu dadka dhexdooda ku yeelanayo, taas oo mar dambe ka dhigayso mid macruuf oo la yaqaano. Shirkad ka mid ah shirkadaha guusha xaqiijiyay, leh wax soo saar baaxad weyn, dhaqaalaheedna uu ka badan yahay dowlado qaar. Shirkadda Nestle
waxaa aas-aaskeeda sabab u ahaa cunug yar oo dhashay, waxaana aas-aasay Henry Nestle. Waqtigii la aas-aasay shirkaddan waa 1866. Curashada bilowga iyo gafafka koowaad waa aas-aaska iyo bilowga guusha. Sheekada cunuga iyo bilowgii guushii shirkadda Nestle. Waxaa jirtay sheeko dhex martay qoysas fara badan iyo aas-aasaha shirkaddan. Waxaa jirtay sheeko la yaab leh: haddii cunuga uu dhasho uuna diido hooyadiisa inuu jiqo, waxaa adkaan jirtay inuu sii noolaado cunugaas. Waxaana ka murugooday arrinkan aas-aasaha shirkaddan, Henry Nestle, taas oo sabab u noqotay inuu aas-aaso shirkaddan uuna ku baahi tiro ilmaha u dhimanayo baahida nafeed ee nolosha. Wuxuuna soo saaray mid ka mid ah wax soo saarkiisa guuleed, waana caanaha Nido. Bilowga hayaanka iyo aas-aaska shirkadda. Haddii aan aadno taariikhda kooban ee aas-aasaha shirkadda, Henry Nestle wuxuu dhashay 1814 bilowgii qarnigii 19aad, wuxuuna ku dhashay magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka. Wuxuuna ahaa yaraantiisa mid ka shaqeeyo samaynta miraayadaha. Wuxuu ahaa waqtigaas mid dhigan jiray maadada chemistry-ga, wuxuuna yaraantiisa jeclaa cilmiga caafimaadka. In yar kadib wuxuu hayaan u galay dalka Switzerland, meeshaas uu farmasho ka furtay. Wuxuuna ahaa mid ku xeel dheer cilmiga dawooyinka, taas oo ka dhigtay inuu dhaqaale fiican ka soo hooyo. Waqti kadib wuxuu furtay warshad yar, taasoo sababtoodu ahayd carruurta yaryar ee gaajadii macluul ku dhimanayo diiditaanka ay diidayaan nuujinta hooyadood. Dhibkaas markaas jiray, xal uma jirin ilaa asiga fikirkiisa uu soo bandhigo. Beddelka hooyada wax buuxiya ayuu soo saaray, wuxuuna soo saaray caanaha Nido. Wuxuu maalin maalmaha ka mid ah maqlay ilmo yar oo oonayo oo deriskiisa ah, taasoo ooyintiisa ka seexan waayey ilaa hurdo ay ka soo dhicweysay. Henry Nestle waxay arrintaani hayaan iyo wax soo saar u noqotay. Henry Nestle wuxuu bilaabay siduu fikirkiisa xal ugu heli lahaa. Henry Nestle taasoo hayaan dheer iyo dadaal gelisay noloshiisa ilaa shirkaddaani ay ka curato. Qoysaska meesha degnaa ayaa waxaa u bilowday maalmo cusub iyo iftiinkii qoraxda shirkaddan. Haatan waxaan soo gaarnay guntii gunaanadka barnaamijka. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.